hay-adda samafalka International Islamic Relief Organization ee waddankaasi Sacuudiga ayaa deeq raashin u qaybisay 3,500 oo qoys oo kamid ah dadka danyarta iyo saboolka ah ee ku kala nool gudaha magaalada Ceergabo iyo Ceelafweyn. Hay-addan oo qaybinta deeqda raashinkan ka bilowday gudaha degmada Ceelafweyn ayaa halkaasi gaarsiisay deeq raashin oo isugu jira bariis, timir iyo caano, iyadoo u qaybisay 1,000 qoys oo isugu jira dadka naafada ah, waayeelka iyo dadka danyarta ee ku nool gudaha magaalada Ceelafweyn. Munaasabadii qaybinta deeqdan ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag, mas'uuliyiinta maamulka degmada Ceelafweyn iyo mas'uuliyiinta hay'adda deeqdan qaybinaysay. gudoomiyaha gobolka Sanaag Aadan Deeriye Cigaal oo horeanba munaasabadii qaybinta deeqda degmada Ceelafweyn ka hadlay ayaa ku nuuxnuucsaday muhiimadda deeqdan u leedahay dadka danyarta ah, waxaanu tilmaamay in deeqdan ay hay'adda gobolka soo gaarsiisay xilli loo baahnaa oo dadkuna ay baahi u qabeen. waxaanu gudoomiyuhu Xuseen deeqdan la gaarsiin doono gacanta dadka baahan, isagoo si weyn ugu mahad celiyay hay'adda deeqdan keentay kana codsaday inay joogteeyaan deeqaha noocan oo kale ah. maayirka degmada Ceelafweyn Mursal Askan Mire oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa isaguna dhinaciisa cadeeyay in dadka deeqdan loo qaybinayo lagu soo xushay sidii ay u kala liiteen, waxaanu xusay in aanay deeqdan ahayn tii ugu horeysay ee hay'addu ay gobolka soo gaarsiiso, balse ay jireen deeqa noocan oo kale ah oo hore ay hay'addan degmadooda u keentay. sidoo kalena hay'addan waxa ay deeqtan oo kale ay soo gaarsiisay 2,500 oo qoys oo ku nool gudaha magaalada Ceergabo ahna qoysaska dadka jilicsan. qaybinta deeqdan ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa madaxda maamulka gobolka iyo degmada, mas'uuliyiinta hay'adda Miskiin Kalkaal iyo madaxda hay'adda deeqdan qaybinaysay. madaxa hay'adda International Islamic Relief Organization Khadar Xuseen Aadan oo horeanba munaasabadii qaybta deeqdan ka hadlay ayaa xusay in gobolka Sanaag uu noqonayo gobolkii labaad ee deeqdan noocan oo kale ay ka qaybiyaan, gobolka Saaxilna ay hore uga soo qaybiyeen. waxa kale uu sheegay mas'uulkan in hay'addooda ay deeqdan gaarsiin doonaan dadka danyarta ah ee ku nool dhammaanba degmooyinka gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa kale uu tilmaamay mas'uulkan inuu aad ugu faraxsan yahay hannaanka deeqdan loogu qaybiyay dadka danyarta ah iyo sida gudoomiyaha gobolka uu la socdo qaybinta barnaamijka deeqdan. Deegaanka degmada Ceergabo Maxamuud Cawad Ducaale oo halkaas ka hadlay ayaa isaguna Xuseen ay maanta bilaabeen qaybinta deeqdii raashinka degmada Ceergabo loogu talagalay, maantana ay qaybinayeen deeqda hormadii ugu horeysay oo ka kooban 650 qoys oo qayb ka ah buu yidhi 2,500 oo qoys oo magaalada Ceergabo loo qoondeeyay. gudoomiyaha gobolka Sanaag Aadan Deeriye Cigaal oo isaguna gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka warramay baaxadda gobolka iyo duruufaha baahiyada xilligan ka taagan, waxaana gudoomiyuhu hay'adaha samafalka ugu baaqay sida hay'addan oo kale inay gobolka ugu soo gurmadaan. waxa kale oo gudoomiyaha gobolka bulshada reer Sanaag ugu baaqay inay sida loo kala jilicsan yahay la isugu tanaasulo oo kaladani aanu ka jilicsan ka horeynin si looga badbaado buu yidhi cuqubo iyo ciqaab eebe. qaar ka mid ah dadka danyarta ee deeqdan loo qaybiyay ayaa iyaguna si weyn uga mahaddoobay ugana mahad celiyay deeqda hay'addan ay soo gaarsiisay. waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf.